qoyskaas oo u haleelay xanuuno lafaha ah kaas oo ku dhacay dad gaadhaya 25 qof waxaana ugu liita aabba dhalay 6 carruur ah kuwaas oo iyaguna xanuunsanaya xanuunkaas oo ah lafaha oo burburaya halka aabahoodna iyo awowgood uu hore u naafeeyay Faarax Axmed oo Yuusuf waa aabaha wiilka dhalay carruur 6 ah oo xanuunka lafajabka qaba xaaladda gaarka ah ee haatan qoyska soo waajahday waa aabba Siciid Faarax Axmed oo hore u ahaa nin ay burbureen luguhu ayaa haatan waxaa bura ka soo baxday madaxa guud ahaan waxaa Siciid dul fadhiyay carruurtii uu dhalay oo qaarkood luguhu ay ka jajabeen dhawaan waxaana markasta lagu xidhaa carruurta xadhig si aysan u jamin marka ay damcaan inay ciyaaraan waxaana qaylo dhaan diray guud ahaan waxgaradka gobolka Sool waxaana lagu qiimeeyay daaweynta Siciid $30,000 halka carruurta lagu baadhayo $10,000 dhaqaalahaas oo loo qaybiyay 2 qaybood waxaa shacabka Laascaanood ku nool ay bixiyeen $20,000 halka dadka muslimiinta ahna laga sugayo $20,000 waxaana la doonayaa in aabaha loo qaado isbitaal ku yaala wadanka India insha Allah ta'ala aniga magacay waxa la yiraahdaa Faarax Maxamed Warsame waxaan rabaa inaan warbixin yar kooban ka siino family-gan oo la yiraahdo reer Faarax reer Siciid Faarax carruurta reer ku dhalay saas u socday oo ah qofku markuu 4 sano meelaha gaaro socodka bilaabo ayuu jabayaa sida aragtaan ninkan intaani waa canqowgii marka waxa ku xigta boodadii inta dhaxona waa maqan tahay marka suu u jabay lugta waa yaraanaysa carruurta reer qaar ba saasa oo jabay hadeer odaygu markuu istaago waad garanaysaa lugiisu waa yaryar yihiin haddana waxa soo kordhay ninkii carruurtan dhalay oo carruurta laga rabay biilkoodii iyo hawshoodii ninkii waxa kaga dhacay maskaxda ayaa waxa ka soo baxday buro Siciid wajkiisa buro maskaxda ka soo baxday sida aad ku aragtaan sawirkan waxa laga qaaday sawirkan hadda aan tusi doono waxa laga qaaday isha ma kala qaadi karo ishaas ku taala gacanta midigta gacanta bidixdaana oo dhinaca kale ana awood ma laha aan raxiin magacayga waxa la yiraahdaa Faarax Axmed oo Yuusuf baa la yiraahdaa taariikhdan dhashay waxa ahayd kontonkii way si wada qaadeen marka inanku saasa xaaladiisu ay tahay xanuunkana marka ku dhacay dambe ee madaxa waxa weeyaan ilaa 7 bilood buu xanuunkaas uu qabay madaxa ah oo ah buro laga helay baa madaxa laga helay marka xaaladdu iyadu saasay ahayd waana dadkuna waa badan yahay dadku wuxuu gaarayaa ilaa 25 qof xanuunka qaba oo dimada xanuunka ka qaba oo 2 gabdhood iyo 2 wiil iyo aniga intaas oo dhan carruurtii wax yar mooyaane waxa weeyaan xanuunkii bay wada qabaan jajabka iyo waxa soo dhan baa jira waxa weeyaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax ilaahay loogu sabro ilaahay baan ugu samraynaa marka hadii waxa weeyaan dabar bay ku wada jiraan dhamaantood wala dabraa hadii aan dabarka lagu xirin way ciyaarayaan dabadna way jabayaan marba 3 jabtaa marba 2 jabtaa marba hadii beedankeeda leeyahay ay bil qulay xitaa saasoo kale imanayaan marka dhibaatadaasi way jirtaa waana baantaay ilaahayna waxaan uga baahanahay ilaahay iyo bini aadnigaba kaalmayn baan uga baahanahay iyo carruurtiisa iyo xanuunka oo qabo oo doctorka idinka waramay waxaanu maanta isugu nimi waxa weeye in sidii wax loogu qaban lahaa aan caalamka gaarsiino wixii halka looga qaban karo yar looga qabto wixii la qaban kari waayana dadka dibadda jira ee muslimiinta ah in la gaarsiiyo aanu gaarsiino ayaanu halka isugu nimi oran lahaa walaalayaal arintaasi gurmad weyn bay u baahan tahay ilaa $30,000 ayaanu ku qiimeynay wax qabadka Siciid Faarax insha Allah ta'ala waa wax qofku culus aan markaa haynin laakiin intaas oo qof oo muslimiina oo rag iyo dumar leh marka loo bandhigo waxa ku filan 30 qof oo min kun bixisa ama 60 qof oo min 500 bixisa ayaa ku filan ama in si kale contribution kale iyo loo dhigo ku filan arintan waxaan codsanaynaa walaalka la sheegay ee muddo 2 bilood in ka yar ah sida u korodhay aad arkaysaan burada madaxa kaga taala waxa weeyaan runtii iyo dhibaatadii hore u haysatay waa wax qofka muslimka ay ka damqado arintan waxaan ku talin lahaa oo codsan lahaa dadka walaalaha muslimiinta rag iyo dumar saqiir iyo kabiir meel ay joogaanba arinta ha gurmadeen
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هوشان كل aad aragtaan sida culimadu sheegtay waa hawl runtii qiiro leh oo qof kasta islaami ka damqanayo una baahan inaan caawino walaalkeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala ugu dhowaano bisha Ramadaan waxaan idinka baahannahay ya gargaar ilaahay subxaanahu wa tacaala baa bixiya laakiin ilaahay dad buu u soo dhiibaa cid buu idinku soo dhiibaa ilaahay inaad u gargaartaan walaalkiin allah fi caawni alcabdi maa kaana alcabdu fi caawni akhiih marka walaalkeen aan u gargaarno aan u nusrayno aan waxa weeye la tadarucno oo dhibaatada haysata aan la qaybsanno ilaahayna subxaanahu wa tacaala isagana ha ka faydo innagana ilaahay hayna ka badbaadiyo subxaanahu wa tacaala imtixaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaanay iyo caruurtiisa iyo xanuunka uu qabo oo doctorka idinka warramay waxaanuna maanta isugu nimi waxa weeye in sidii wax loogu qaban lahaa aan caalamka gaadhsiino wixii halka looga qaban kara yana looga qabto wixii la qaban kari waayana dadka dibadda jira ee muslimiinta ah in la gaadhsiiyo aanu gaadhsiino ayaanu halka isugu nimi Maxamed Axmed Soomaali SBC TV